Bukayo Saka Bukayo isaga ayaa kubadda la soo galay diilinta Bukayo go'aan ayaa laga sugaya banaanka ayuu soo dhigay Gunners Bukayo Saka ayaa ogaanka u dhiibay Arsenal kubaddu qaladkeedu lahaa goolayo Valores wax badan kuma dhibtoonaysa Arsenal waayaan dambe inay shabaqa gaaraan u dhaliyay welina aan samaynin wax caawinaada Keita waa mid ka mid ah ciyaartooyda da'da yar oo Arteta soo saaray Bukayo Saka geesiga garoonka hogaamiyaha Arsenal waa kan xidig leeraado Odiga Tunnel isku daygiisii labaad darbadii labaad ee uu shabaqa aadiyay Martin Odiga ayaa ka dhigay 2 gool iyo eber tan waxay muujinaysaa hogaamintiisa waxay muujinaysaa awoodiisa qadka dhexe iyo ka ciyaaristiisa lambarka 10aad Martin Odiga ayaa 35 daqiiqo hogaanka u sii dheereeyay kooxda kubadda cagta Arsenal kubad dhexda laga soo agaasimay kana timid ciyaaryahanka lagu magacaabo Bukayo Saka ayuu dawmariyay goolayo Valores banaanka ayuuna ka toogtay kadib isbees fiican u helay lugta bidix ayuu mar kale ku tijaabiyay waana uu ka dhaliyay markaan waxaa la yidhi haddii aad qabatay midii hore midaan iska qabo looma fakirin looma shakin labalabeenna ma jirin dhulka ayaa loo dhigay Valores oo u muuqda markaan inay da'du run sheegtay Arsenal ayaa London derby halftime ku hogaaminaysa 2 gool iyo eber hogaankay sii dheereysteen ciyaartay sii dheereysteen amigooda horyaalkan waa uu sii socdaa walaha waxay tirsan doonaan bilaha February Mars Abriil iyo May waa bilihii dabaaldega horyaalada tani waa Arsenal kameradu waxay soo qabatay markii ugu horeysay Antonio Conte hogaamiyaha kooxda kubadda cagta Gunners Harkin ayaa dhiirigelinaya saaxiibadiisa ciyaartu waa 2 gool iyo eber 36 daqiiqo Martin Odiga ayaa ka dhigay 2 gool iyo eber Bukayo Saka goolna waa uu lahaa sababteeda gool kalena waa uu dhaliyay baas wuxuu sameeyay aan la fiirinayn ciyaaryahanka loo baasay kubaddaas laakiin Keita oo u muuqday inuu offside ku jirayna kubaddaas ma doonan energy badan ma gelin waa kan Harry Kane duulaan ayay sameynayaan Harry banaanka ayuu soo dhigay Son halis 83 daqiiqo ayuu rabaa inuu wax walba ku soo gabagabeeyo Antonio Conte Son kubaddu ka helay Harry Kane koray ka martay Ramsdale ayaa faraha ku taabtay Ramsdale ayaa kubaddaas taabtay waa kan Van Persie ayaa soo tuuraya koorada loo dhigay Arsenal Tottenham waa carcar waa la soo qaaday kubaddaasi waa iska soo saareen ciyaaryahanka lagu magacaabo Kulusevski isaga ayaa kubadda haysta Kulusevski waa uu soo karoosay kubadda halisa Bukayo ayaa soo saaray wax jooga male meeshan Valores ayaa soo celiyay London derby Arsenal way xarootay Tottenhamna waa duulaan 7 daqiiqo ayaa dhiman wax lagu dari doono laakiin ma oga natiijada waxay ku dhamaan doontaa hadda waa 2 eber Brian Gill cross ayaa laga sugayaa waa uu karoosay kubaddaasi laakiin Ramsdale ayaa qabsaday kubadda qabsaday goolaha kooxda Arsenal Ramsdale walaay kaliya qaanada waqtiga loo lumiyo sida waqtiga loo la ciyaaro sida kooxdiisu u caawiyo iyo daafacyada booska ka joogaan iyo weeraryahanada uu yaqaana Richarlison ayuu ku qoslayaa hadduu tuurana way dhamaatay garsoorkana seeriga ayuu dhawaajiyay Arteta ayaa la dabaaldegaya caawiyaashiisa Arsenalna waa fiida sare ee horyaalka Ingiriiska 47 dhibcood oo nadiif ah ayay hadda ku hogaaminayaan Richarlison ayaa la dagaalaya Ramsdale maadaama uu aflagaadeeyay siday u badan tahay Gabriel ayaa sidoo kale soo dhex galay arinta taageerayaasha laga celinayaa maadaama la joogo garoonka kooxda Tottenham garsoorka ayaa soo dhex galay dagaal ayaa lagu soo gabagabeynayaa Arsenal wax walba ay sameysay dadaal walba ay sameysay ande Tottenham waxay maciinbidayaan inay la dagaalaan goolayaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Ramsdale kaasoo fowdo sameeyay ciyaarta markay dhamaanaysay